أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله maanta waxaan qaadanaynaa xabkihii Soomaaliya ayaa noo socday silsiladaas maanta marka waxaan qaadanaynaa xabagta loo yaqaano xabag cadaad xabag cadaad English waxaa lagu dhahaa gam Arabic haddana waxaa lagu dhahaa Acheche Senegal labadaas magac way leedahay Arabigana waxaa lagu dhahaa samqal Arabi وهاشان جم عربية أما حبك عدادة واتنرت ونوعا تاسون مركلا فيري حبكها سانو كله وحلين إيجو آد وعد إيجو حوجا كلر كان له حوجا جدود كجرو إيجو حلين إيجو جدود ومذوق وصلوية لكن وحاجة تقول لي هاي ها marka inta caafimaad waa laga helaa laakiin isla iyadaan geedkeeda wuxuu yahay noocyo badan qurac waa moogta qurac ka baxda quraciya wuxuu leeyahay inta soo nooc yani adduunka meel badan oo qurac especially Africa qurac Africa lagu yaqaan marka meel badan oo Afrika laga helaa laakiin nooc anaga hadda aan darsayno oo baranayno waxa la yiraahdaa gam Arabic Englishka ama Acheche Senegal xabag cadaad Soomaali waa la dhahaa waxa kale ku maqlay xabag macaan waa la dhahaa yani waa wax nacnac amal inta afka gashatid macaan yar ay leedahay oo afkaaga sidii nacnac iyo kale ugu dhamaanayso xabag macaan waa la dhahaa marka xabka kala jiro oo iyagana leh faa'iidooyin kale laakiin tan anaga hadda aan u socono waa midaan waa resin yeah English xabkaha xidhaan resins marka resinka hadda noocan aan qaadanayno maanta waxaa la dhahaa gam Arabi جم عربي أما حبك عداد في صوماليا ووح لو يقانو تاريخ الصومالية هي استعمال كذا يعني وح عصب معها وهذا اللي قد عدع سيناي مثلا هذا مركان ميدي كهذين ضد بدنا ولقد ميدي مقلين مركان لو بنذكر كهذين ضد بدنا حيكلين ولقين ما مقلين بس كده فائدة إنه بحكي قانون الملك معروف sida malmalku macruuf u yahay xabag cadaadana macruuf u tahay markay ugu yartahay dadku waxay ku xasuustaan Soomaaliya qofkii dugsi ku dhigtay waxa way loox ku dhigtay macruuf u yahay sababtoo ah waxa la sameeyay xabad tan oo kale ama laba la soo qaadaya biyo lagu dhex daraya biyaha sid xoogaa markay ku jirto waxay ku noqonaysaa guri caaw ilaa guri dad ku jira caadi afraad saac amal baanta marka waxaa la sameeyaa dhuxusha oo la shiiday dhuxusha charcoal oo la shiiday ayaa lagu dhex daraa waa la isku laxayaa marka la isku laxay waxay noqonaysaa anaga ku shiidi jiro markii la yaraa maxaa sameeyay jilay geed u tahay waa lagu xoqaa shiididi waa waxa ku shubay wax yar oo
واسكو ريقة ناس هنجرتها ونظام دتك أي سميستها وأنا في عنتها يعني لبضوا ذي على سكول حسبينها لكن كان هذا وقت المركي أو الله حلو أيام أنا قاعد بالنور يرجع لك خاص يا الله كلامي عرفت على هذا أصل كده الله ما كلامي طب لأنه وجلو يعني جلوسي جلو هذا وحيابها كلولو يقانو وينص صعدان وحيابها لو استعمال كلر كواي هذه كلر لو قدره كلر كاس ستيبل ونقنايا ما يعني ما نقناي كلر أو ترتير مان كلر ونقنايا وحرتو استعمال كلر لجنو ونقنايا أو استاجي marka waxyaabo loo isticmaalay kamid tahay marka khadda Soomaaliya qof kasta oo bahasha maqlay wuxuu ku leeyahay alla waa tii dugsiga ku dhigan jiray marka taariikhdaas dadka isaasay markay u yartahay oo fahansan yihiin alxamdulillah laakiin nafceeda aad looma yaqaan hal waxa la og yahay markii khaddaas isaas loo soo isticmaalayay haddana dadku way cunayeen dadka markay helaan ilmaha especially waa la cunay subxaan allah may faa'iido midol faa'iidadeeda leedahay marka cunitaankaasayto yani waxyaabaha ku jira waxyaabaha ilaahay uu fadligiisa yani qofku markuu iska cuno ma umaleynaa inuu faa'iido ugu jirto laakiin faa'iido ugu jirto especially ilmaha markay cunaayeen already calooshooda ay daaweynayeen yani nafaqay leedahay يعني nutrition كذا وآد أسرية مركا إسلام مركاس يعني كليها وفي عنتها حياة بدن وفي عنتها مركا والعناي وقفك هذا وين تنسمع لكن لقى حد يلقى جب واحد يلقى جبيه يريش أنا قال سام مركب أفكار الكوبا بيسا و solvable بيها والكوبا بيسا يعني هذا أنا وحالها fiber اللي مثلا فائدooyinka ugu waaweyn laga helo fiberka waay laana caloosha markay yani la rabo inay si oo dabiici ah oo caafimaad leh inay u socoto waxyaabaha u baahan tahay fiberka waxa waay مثلا cuntooyinka baalka leh laga helaa yani cuntadii badarkii caloosha waxay kala baxday wixii nafaqo dhan waxay iska tuuri lahayd waxa u badan qolofta Soomaa qoloftaas markii uu qofka cunto baal leh cunayo qoloftaas oo badan calooshiisa ka baxayso taas markay baxaysaa in saxarada qofkaas ay u sahlanaato inuu musqusho tago laakiin haddii wixii laga waayo fiber cunto aan fiber lahayn caloosha inta badan ma ka bixi karto yani digestive-ka oo ma fiican dheefshiidka marka bahashan waxa lagu yaqaano waxa waaye laba wax fiber keeda wuu sareeyaa aad u badan yahay oo caloosha uma ogolaado inuu istaago yani dabcan iyada qolof ma laha laakiin waa waxyaabaha caloosha u sahlo in ay qofka constipation ku dhicin ama caloosha istaagin taas waaye marka fiber loo dhahay waxyaabaha kale oo ay u fiican tahay waxaa ka mid ah kiliyaha hadduu qofka uu biyo badan qaato kiliyaha way sifaysaa dabcan bahashan xabag waaye keligeed intaa iska qaadatid wax badan calooshaada way ku dhegaysaa markaa qaadanaysa biyo badanna inaad la cabaysid waaye marka biyahaas badan uu qofka qaadanayo dabcan kiliyihiiya biyaha maaragtay ay sii marayaan kiliyaha waxay u tahay way nadiifisaa waxaa kaloo jirto yacni dhagax hadduu jiro kilida ku jiro isagana way ka bixisaa waxa ugu fudud oo la samayn karo waxaa waaye hadduu qofka kiliyihiisa dhagax ku jiraan iyadoo habeenkii biyo lagu dhigayaa masalan marka la shiido 2 qaadoo kale oo iyadoo la shiiday waa taas iyadoo shiidan hal xabba haddana noo soo qaban karta kor bacda ku jirto iyadoo shiidan qiyaasta oo markaan shiido aniga waxaan ka qaataa qiyaasta caafimaadka waa arki kartiin waa fiirin kartiin marka iyadoo shiidan waa taas waa the same thing waa taas markay saas tahay 2 qaado oo kan ah haddii lagu daro hal litir oo biyo ah 2 qaado tan ah 1 litir biyo iyo 5 xabo liin dhanaan haddaa isku meertid oo cabtid 2 jeer oo kale maalinkii kaasayt 2 litir every day yani ilaa muddo bil ah
waxa waaye calooshaada caafimaad badanna way helaysaa laakiin keliyaha waxa waaye daawada keliyaha ka bixinaysa dhagxaanta iisoo dhig daawada dhagxaanta keliyaha ka bixinaysay waa yani sidee ugu fudood looga bixin karaa waa in baashaan la qaso markii la qaso liin dhanaan lagu dhex daro laba qaado 1 litir oo biyo ah 5 xabo liin maalin walba hadduu qofka cabo xataa 2 litir hadduu ka dhigo biyahaas okay waayo laakiin meelo badan waxaan ka arkay dooska u fiican qofka inuu ku caafimaado oo xataa prevention u noqon karto ka hortagga xanuunada dooska 3 qaado oo kan waa dadka qaar waxay dhahaan 15 grams dadka qaar waxay dhahaan 15 grams daily intake loo baahan yahay waa 15 gram ama 3 qaado oo tan ah research badanaa laga sameeyey laakiin intaas iskugu soo noqonaya marka the good news waxa waaye waxay ku fiican tahay overdose ma ku noqonaysid yani مثلا ماشي 3 qaado laga rabay oo qaadada waxa waa cuntada lagu cuno tablespoon مثلا 6 qaatay 9 qaadatay يعني 3 times soma wax dhiba ma jiraan insha Allah side effect ma laha bas biyaha ina badsatid si ay caloosha u fariisaneen waxyaabaha kale oo medicalka u baahan ina ogaatiin waxa waaye bahashan caloosha markay gasho qaybta kore oo digestive-ka kore shaqo kuma laha only markay gasho yani qaybta weyn oo maaragtay qashinka iyo waxaasay aadayaan qaybtaasay tay shaqadeeda gashaa xiidmaha weyn ma xiidmaha yarka ma aha caloosha soke ma aha xiidmaha weyn which is colonka shaqadiisa ugu badan waxa waaye waa xiidmaha qaybtiisa labaad yes mostly xaggaasu shaqadeeda u badan yahay because of yani caloosha waxay ka nadiifisaa wixii oo large intestineka waxaa lagu kala bixiyaa nutrientskii ugu dambeeyey wixii qashin noqon lahaa iyo wixii faa'iido la meesha ku kala harayaan marka iyada shaqadeeda meeshaasay ku fiican tahay halkaasay joogtaa caloosha soke shaqo kuma laha dheefshiidka soke ma aha laakiin xiidmaha weyn ayay shaqadeeda inta badan ay ka socotaa halkaasay marka caafimaad badan uu qofka ka helayaa maadaama calooshii ay nadiifinayso waxay kaloo u fiican tahay lafaha qofka qaadanayo lafaha waxaa la dhahay kala goyska dhacaanka markuu ka dhamaado ya Maryam kursigan haddaad soo fadhiisan kartid ama waxyar isu kala dhameey isu kala baneeya si oo idinkoo dhan hal saf ay wada arki kartiin may kan ba iska fadhiiso kan soo ima arki kartiin okay so waxa waaye waxaa ku aadanayd barsana ku aadanayd marka waxa waaye waxaan dhahnay caloosha iyo qaybta weliba oo qashinka ka saarta jirka oo qaybta ugu dambeyso xiidmaha ama mandhicirka waxa la dhaho ayay aada uga shaqeysaa marka waxyaabaha ay sameyso waxaa ka mid ah baashan waxaa waaye waxaa la dhahaa probiotic waa natural probiotic micnaheeda yacni bakteeriyada oo fiican oo jirka caloosha u baahan yahay ayay kordhisaa waa bakteeriyada jirka u baahan yahay bacterias markuu uu jirka helo caloosha si fiican ay u shaqeynaysaa marka bad bacteria iyo good bacteria bad bacteria waxay u baahan tahay antibiotic yacni wax oo yacni bacterias ka saara jirka laakiin tan waxay u kordhinaysaa tii fiicneed which is probiotic marka halkaas fermentation waxa la dhahay ku sameysaa yacni qaybtaas hoose caloosha waxay sameysaa probiotic dhan halkaas ka shaqeynaya caloosha horta way caafimaadaysaa wixii qashina way bixinaysaa wixii nutrients ahna jirkay u soo celinaysaa soo marka dadka inta badan xanuunsan waxa waaye colonka ugu dambeeyo meesha digestive-ka qaybta ugu dambeyso ayaa disorderka u ka imaadaa
haddii uu qofka maaragtay uu toxinka ku badan yahay halkaas toxin badanaa ku jiro. hadduu constipation jiro even worse way kasii daran tahay. yacni dad waxaa ku jiro ku dhahayo yacni 2 maalmood 3 maalmood musqul ma tegin, isbuuc musqul ma tegin, waa yaabi jira markii hore, ilaa dad ay imaadeen dheheen bilo ma tegin musqusha yacni si toos ah caloosheed, ilaa markii dambe aan maqlay dad idhahay sanawaad. yani ilaa hadda ma garanayo qofkan nooca saas oo kale wuxuu ku nool yahay. laakiin waxaa halkaas ka cad xiidmaha weyn inuu dherarkiisa uu aad u dheer yahay, yani in badan wax aruurin karaa. so imagine qofka marka intaasoo sano yani constipation problems qabay oo caloosha taagneyd, meeshii marka maxaa dhacayo, xataa waxaa jira xanuun la dhaho Cohen, waa COHN Cohen disease. waxa waaye calooshii oo xiidmihii duleel soo ku dhacayaan, saxaradii halkaasay ka baxaysaa, jirka dhexdiisay ku daadaneen. yani fiiri, saxaradii meeshaas fadhida, saxarada waa acid iyo toxin iyo wax kasta soo maa, way cunaysaa jirka. marka ugu dambeyso asagooba qofkii meeshii saxarada ee ka bixi lahayd meeshii loogu talagalay intay duleeshanaysaa. so waa jiro jirto waay. dad waxaa jirto oo intay duleeshantay, dadka qaarkood waa la kabaa, meel kalaa laga soo gaya, laakiin qofka aan la kabi karin meesha waa very sensitive. waxay noqonaysaa qofka inuu xafaayad camal wax ah inta uu ku wato way dhacdaa something bag oo waxaa jirto instead waxaan soo bixi lahayn waa wax oo yani qofkaasayta socially dhib badana haysto, dadka ma dhexgeli karo. marka waxaa la siiyaa bag oo lagu dhex shubo. marka intaas intuu qofka gaarin waxaa fiican marka inuu ka shaqeeyo inuu caafimaadkiisa yani. marka bahashaan meesha caloosha qaybta ugu dambeyso intestineka, the large intestine, meesha ugu dambeyso qashinka ka baxo soo bahan. inta badan dadka oo constipationka hayo build up of stoola dhacaya mogta. marka uu dhaco dabcan saxarada waxay leedahay waa qashin uu jirka rabay inuu iska saaro, mainly toxins and bacteria and all that. so imagine if haddii ay meeshaas in badan ku jirto, marka dambe marka waxay sameynaysaa way cunaysaa, eats up the wallska. exactly. so spillina imaanaya marka spills out. so waa very uncomfortable situation, ilaahay naguma keeno. laakiin that's why caloosha nadaafadeeda ay muhiim u tahay. so marka bahashaan arkayna marka xabag cadaad markuu ilaahayna sii sabab soo nooma siinin. Allah gave us this for a reason. why aan marka anaga yani oga faa'iideysan weyne. that's why marka waxaan rabnaa informationkan inaan la badiyo si dadka ay u caafimaadaan. laanna qofka markuu constipation in badan hayo mainly xanuunada say kusoo degdegaan waa saas, laanna jirkii toxinsa ku jiro. qarastaas badan maxay keenaysaa marka inay ay calooshii nutrientki xataa qofka hadduu cuno cunto oo maybe fiican later on asagoo calooshiisa in badan taagnayd, nutritionkaas caloosha ma qaadan karto, maba taqaanaba, because waxa waaye way block garowday shaqadaasayta interruptiona ku dhacay. marka waxaa la rabaa caloosha inay nadiif tahay in order caloosha cuntadii soo gashay si ay uga qaadato nutritionka ku jiro. marka saas darteed yani waxaa la rabaa caloosha inay nadiif tahay, especially ilmaha yaryarka. xanuunadu waxay ugu soo degdegayaan marka ugu horeysa iskama ilaalin karaan nadaafadooda, aada uma ilaalin karaan. marka cuntadii cunaayeen marka inay qaldanaato dhibaato kale ugu sii jirto. awal iyagoo ogeyn waxay cunaayaan waxyaaba badan afka iska geliyaan, laakiin waxaa loo baahan yahay in cuntadana lagala dadaalo. oo marka bahasha marka maxay soo gelaysaa waddankeena inuu daawo u baahnayn. qaybta waxay soo gelaysaa waddankeena inuu leeyahay natural daawo oo ilaahayna siiyey. haddaan tan haysano constipation ama calooshan taagan dadka taagan maba loo baahnayn. 2 qaado iyadoo shiidan hadduu maalin walba qofka qaato way ku filan tahay, intaasoo ku filan. marka hadduu dietkiisa qofka ku daro
hadda markaa saa anaga u sameynay oo dowska saxda ah markaa siinaa qofka waa inay shiidan tahay marka hadda dhaladaan tubka oo kale aan ku shubnay markaan si kale u qaadan waayo ani aan ka daaho oo aan nidaam kale u samaysan waa aan degdegayo maaragta ma qaybtan oo hadda furan waa spices bahalka loogu talagalay soo maa shaahayga ku shubtaa shaaha iyo shaay caana jeclahay caana gel inaan ku darsado waa ku shubaa waa dhigaya shaaha in yar haday ku jirto way ku milmeysaa haddii kale waxaad sameyni kartaa koob biyaa ku shubanaysaa intaa shaqeynaysa ama wax waa ku shubanaysaa koobkaas biyaha waa cabtay yacni siyaabo badana ya ilmaha biyaha juuska ilmaha marka la shiidayo sharaabka hadda dadka xanuunsan ani waxaan ugu sameeyay tan inaa sharaabkay ku shiitaan ya in marka la shiidaayo cambihii waxaasayto biyihii lagu shiidaayo ina iyada biyaheeda u ahaado biyaha lagu dhigay moogta xaloo kale ama 2 saac ka hor ama saas oo kale biyahaasaa marka ku shiidaysa cabitaan haa sidaasayto weligood ma dareemayaan inay cabo haddana waxay ka dhigaysaaba ma laha laakiin waxayba samaynaysaaba hadda waa aragnay mango juice markaa dukaanka kasoo gadid inuu thick yahay waa chemical waxa saas ka dhigay ma aha natural key already mar hore ka baxay natural waygiisii kan muxuu siinaa marka thickness kaasay tusinaya more يعني وعسليسينايا يعني جوس كاسيتو ومعانكو كاسين دغايا انا باشان معاود waxa laga yaabaa isbuuc dhan ka hadli kara ahada u jeclaan marka ma sha Allah qurux weyn ila qurux badan tahay fiiri soo ma jirto fiiri waxyaabaha faa'iido ku jirta Ilaahu noo qurxiyay daawooyinka inta badanna way caraf ya hada fiiri qofkii herbalka dhex galo waxa arkaysa daawooyinka herbalka way wada caraf badan yihiin hadda bugan Canada ka soo gatay meel walba saas u idaba socda waa waqti aad ka jeclahay inta herbal ku taalo yani waxa arkaysa diyaarinteeda everything all the information ku jira marmar waa fiirin kartaa sida loo diyaariyo waxaas arkaysaan kulligood caraf waa geedahaas by the time asii qaadanaysid aromatic maxaa loo dhahay aromatherapy yani waa caraftaas marka wixii macaan ilaahay oo quruxdooda fiir fruitka dhan si qurux badan soo ma jeed waxa ku jiro sira ku jirto wixii quruxda inay noo macaan inay caafimaadkeen ku jiro wixii caraf inay caafimaadkeen ku jiro waxa soo dhan marka baasha soo aragtay markii wallahi sawirada aan ka qaado marka qaarkood waan yaa waxa subhanallah yani aad u qurux badan tahay soo marka ilaa hadda ka hadalna bil dhan xataa ma gaari karno baashan macnaheedu soo hadda marka waxaan dhahnay caloosha u fiican tahay waa probiotic qofkii qaato caloosha ma istaagayso soo maaha kiliyaha u fiican tahay dhagxaantay ka bixisaa way nadiifisaa dhagxaanta lagu sheegaa kiliyaha waxa waaye waa ciidu way ku imaataa dadka ciida biyahooda ku jiro laakiin marka qaarkood waa crystalkaas waxa qofka biyaha hadduu badsanin kaadida waa concentrated soo maaha liquid oo laga soo bixiyey dhiig dhexdiisa cuntooyin laga soo bixiyey way culus tahay hadday markii helin biyo oo badiyo oo jirka si uga baxdo waxay noqonaysaa exactly cirbad waxay noqonaysaa sakiin oo kale sakiin ay noqonaysaa qof sabran kilida laga haya sakiin camal ay noqoto waa crystal marka waxaas waxa baabiinayo kan iyo waxa way biyaha ayadoo biyaha isku qasan yihiin marka way nadiifinaysaa kilihii lafahana jointska kala goyska lafaha dhacaankiisa intuu ku jira ya faa'iidooyinka aad u badan yihiin baasha waxay leedahay natural mineralskeeda aad u badan waxaa ka mid ah calciumkeeda waa high magnesiumkeeda waa high potassiumkeeda waa high
qofka qaato mar walba kaadidiisana way badnaanaysaa dabcan waxaa la rabaa qofka inuu regular biyo uu cabaayo marka awal hadduu qofka kaadidiisa ay yaraan jirtay bahasha markuu bilaabo waxaa badanaysa inuu kaadidiisa badato laanna keliyahay nadiifisaa calcium magnesium iyo potassium calcium waxay aada ugu fiican tahay lafaha ilkaha waxyaabaha la mida tinta soo maa magnesiumka waa daawadii maskaxda any food ay ku badan tahay magnesiumka daawadii maskaxda ku badan potassiumkana waxa waaye waa overall baadhiga oo dhan yacni waxaan o dhan ma ka maarmaan laakiin mid walba si gaaray meel walba ugu sii fiican tahay yacni laakiin mineralskana ku badan xabagcadaada hadda soomaalida cuntada maanta dhan mooskay ku cunaan mooskana waa potassium socdo yani sababaa naloo siiya allahu aclam maybe waa u baahanay mo waxaa kaloo jirta hadda magnesiumka waa cuntooyinka badda ku badan yahay laakiin fiiri soomaalida inay dad aada u kulkulul yihiin maaragta oo wax u adkeysan karin nervous waa aada yani u yihiin temperkooda uu dhow yahay cuntada baddaa nagu yar haddaa cuntada badda nagu badan tahay waxaan ahaan lahayn dad dhiigooda xoogaa degan yahay maskaxdooda degayso yah dadkeena buuq waxaa arkaysaa yani waxaa micno lahayn waa lagu xanaaqaya aada u dhiigooda u kulul yahay marka haddana waxaa la cunaa hilib badan hilibka badan qalbiga wuu adkeeya sheekhaa wuxuu yihi xoolahan aada dilaysaan maanta dhan nool oo aa cunto darteed la u dilaysaan naxariis darhaaba ku jirto marka wuxuu dhahay hilibka qalbiga wuu adkeeyaa physically iyo maxaa la dhahaa isheeg wuxuu dhahaa xisiyan iyo wuxuu dhahaa isheeg yani emotionally iyo physically labadaba yani wuxuu dhahay qalbiga wuu adkaadaa muxuu ku adkaadaa liano hilibkan badan wuu adkeynaya emotionalna qofkii yani dareen ahaan uu iska qalbi adkaanaya laakiin yani waxyaabahaas waa daraasooyin badan oo la sameeyey study badan oo la sameeyey soo maaha waa xanaaqeyna ani waxaas dhaha dhiigan badan waaye dabcan qofkii dhiig badan wuxuu hilibku cunaya dhiig badana ku jiro marka isbuucii mar ama laba hilib in cuno inta kale inaa maarata qofki iska yareeyaa fiican laakiin baddaasay weyn waxba kama cuno waxaa cunaa xoolaha qofka hadduu hilib cuno maanta laba cad oo yar hadday cuntada u saaran tahay inuu cunto cunay wuu ogyahay wuu aaminaya laakiin haddii hal hilib ugu jira khudaar nooc kasta usoo saartid maanta cunto lema siinin malay marka malaygana lama cuno yani soomaaliya gaajooyin badanaa ka dhacay badda iyadoo buuxdo waayo because mala yaqaano sida wax looga soo saarto laakiin haddaa cuntadeena u badan tahay badda waxaa laga sameeyey jaziirad meel ku taal ma aqaan somewhere Indonesia miya ma aqaan cuntadooda dhan badda waayo marka la fiiriyey waa dadka ugu maskax degan adduunka ugu cimri dheer maanta dhan haddaa la dagaalaysid markaa xanaaqayaan waa temberkooda aada u qabooya yacni maybe soomaalida hadday badsadaan way ku fiican xagga waxaan ku keenay magnesiumka hadduu xoogaa nagu fiican yahay haddana waxaa qofka ku ka yaryahay iyo waxyaabo minerals kaloo badan maskaxda u baahan tahay way jiraan even potassiumkan iyo calciumkan iyo waxyaabahaas oo dhan laakiin haddii uu hadduu jiro nutrition deficiency oo xagga maskaxda ah dadkeena inta badan madaxa iyadoo laga hayo jinia ku dhacaa la dhahaa laakiin haddana waxa haayo waxaa waaye nutrition deficiency oo keliya haddii laga kabo intaas laga yaabo inuu qofkaani u baahnaan lahay wax kale marka hadda alxamdulilah bahashan waa ujeednaa waxay noo bedeli kartaa malaygii waxay noo bedeli kartaa hilibkii mooskii waxyaaba badan nafaqadeeda iyadoo badan tahay soomaaliya markay gaajo ka dhacdo bahashaasaa loo baxsan jiray researchyadan soomaaliya ka sameeyey ka mid tahay maxaa loo isticmaali jiray haddaad tidhahdo dadka oo wax ka warqabo geedaha waxay dhahaan bahashan gaajo hadday dhacdo tanaa aada loo cunaa la-anna waxaa la arkay satisfaction waxay ku siinaysaa calooshaada inaad dharagsan tahay baahidaada waa yaraanaysaa markuu qofka cuno ilmaha ka dhargo ma dareemayo inuu gaajo hayo saasaa waxaa loo dhahaa weight loss
programka weight losskana way geli kartaa oo hadda ani dad waa ugu diyaariyaa weight loss ahaan laanno haddii uu qofka cuntooyinka kale iska kala yareeyo gaajo uu ugu cararo cuntooyinka kale ma imaanayn hadduu baashaan qaadanayo weight losskana way ka qayb geli kartaa lafahana way dhistaa dhacaankana way siisaa marka laga soo tago xagga caafimaadka waxaa isticmaalo kambaniyada cuntooyinka ayaa isticmaalo masalan processed food kambaniyada ayaa isticmaalo waxyaabaha u isticmaalaan sababaha u isticmaalaan waxaa ka mid ah food thickening like cuntada inay u adkeyso masalan cunto biyo ah ayaa waxay ka dhigaysaa cunto oo fadhido ama wax oo dareero ahaa ayaa waxay ka dhigaysaa dhagax camal yani waa lagu adkeynaya cuntooyin badanaa lagu daraa intaan cuntooyinka ka bixin waxyaabo tijaabooyin badanaan geliyay bahashaan xabag cadaada wallahi waxaan arkay yani wax weyn aad iyo aad u weyn ayuu dietka cuntadeena ka bedeli karaa bahashaan haddii loo isticmaalo meelo badan hadda waxaan dhahna juuska lagu qasi karaa soo ma suugada khudaar marka la sameynayo waa lagu adkeeya waa ku darsanaysaa waa ku adkeynaysaa ha suugada rasiinay ka dhigaysaa markaa ku dartid dadka qaarkood bocor iyo waxaas ku rasiin garaya soo ma suugo yar waxaa hartaa oo khudaar keliya ka kooban xoogaa ku shiilan iyadaa ku daraysaa waxay kusoo baxaysaa very wax oo concentrated shiilan oo macaan aaday ugu macaan tahay waxaa kaloo oo aan ka sameeyey aan tijaabo geliyey dadkeena waxaa la isticmaala ketchup iyo waxaas soo ma waxaa ka sameeyey sirab yar oo booskii ketchupka ku galaya insha allah maalintaa tijaabinayna waxaas idin tusi doonaa hadduu ilaah idaaho sirabkaasayto yani wax hartaa ku darsan kartaa noocaa rabtid waa karinaysaa markaad karisid dabcan dareerka adiga kugu xidhan tahay culeyska haddaa biyo rabti inaad ka jirtid haddaa meel dhexe haddaa thicka rabti inaad ka dhigtid anything aad jeceshahay flavorkaaga ku darsanay sokor ku darso cusbo ku darso khal ku darso maxaan ku idhahdaa ii sheeg anything waxyaabaha hadda marka siribkaas aan ka sameyno waxaa ka mid ah yacni markii ee karto waxaa lagu darayaa qiyaastay ku xidhan tahay masalan 3 qaado oo kan ah iyo 2 koob biyo 2 koob biyo iyo 3 qaado oo tan qaadada wax lagu cuno tablespoon ayaa isku dartay markaas isku karisid waxaa ku daraysaa 3 qaado oo sokor ah dabcan sokorta waxaa isticmaalaa cane sugar inkastoo gadaal dambe hadda ayaan dhaweyto markaan baaritaan xoog leh ku sameynayo sokorta ay cane sugarka ay soo galayso sulfateka yani sulfate processka ay soo galayso oo maxaa imaanayo inuu chemicalki laftirkeeda iyada uu ku jiro marka that's why hadda waxaa u bedashay ya waxa waaye stevia sokorta stevia hadda u bedashay sokor kale ma isticmaalo stevia waa caleen geed marka hadda taasayta u isticmaalay bahashaas marka ama stevia ama malab la hubo ya adi sokor oo natural ah marka saddex qaado tan ah 2 koob biyo ah iyo sokortaas oo 2 qaado stevia mar walba ka macaan tahay sokoraha kale sweetkeeda waa ziyaado waa marka 2 qaado kaas hadii la isku dhex daro waxaa kale oo sameeyaa maxaa la dhahaa raqayga ma aragti raqayga biya lagu dhigaa nus koob raqay oo thick ah waa lagu dhex daraa wuxuu soo baxaa sour sweet oo waxaad ku darsan kartaa ketchup ahaan oo isticmaalaysaa ya rootiga haddaa ya slice waxaa marsan canjeerada ku darsan kartaa anything so maalmahan tijaabinayna waxyaabo saas oo kale haddana waa sii tijaabin kartaa insha allah marka idinka tijaabisaan laga yaabo waxyaabo kale inayba kasoo baxaan marka aada u jecla hadda maanta oo kale waxaan ku sameeyey bataatiga macaan inta la kariye markuu uu jilcay aada u jilcay xoogaa yar biyaan ku daray tanaan ku daray
markaa ku daray xoogaa thick ay isku noqdeen sokortaas steviyadaan ku daray wuxuu noqday yacni dessert markaa qadaysid wax yaroo macaan soo ma jecel inaad iska cunto sida jalaatadii oo kale yani haddii hadda la qaboojiyo baraf laga dhigo waxaa umaleynaa dessert oo la tartami karta inay magaalada oolin so alxamdulilah waxaas oo dhan haysanaa marka yacni food thickening waaye intaasoo ideyooyin adaa ku daba dari kara waxaan hadda fiiri youtube-kii ma ka helaysid because dadka weli ma wada fahansana laakiin tijaabooyinkaas hadda ani aan geliyey meel kale kama helin markaan ka fikiray inay cuntadiiba ay adkeynayso alxamdulilah waxaan bilaabay inaan fikraddaa marka ay kugu dhalato mid kale ku siina laba kale ku siina so that's hadda I'm kind of like taking fun of ina experimentigaas waxyaabaha aan jecla hobbigayga waxaa ka mid a inaa experiment garayso ya hadda marka aada oga helay marka tan waa xagga cuntada markay noqoto yacni insha allah maalinta oo aan galayno practicalka waxyaaba badan idinka fikrado kale waa kusoo dari kartaan insha allah maalin dhan aan u sameynaynaa waxaa jira pharmaceuticalka aaday u isticmaalaan xabag cadaada waxay u isticmaalaan inay stabilizer inay ka dhigto kaniiniyada sometimes codingka kaniiniga oo waxa lagu daboolo oo kale ay ka dhigtaan ya capsulkaas ma aha masalan kaniiniyo oo nuunuurayo soo ma arkin oo qofka dhala camal kuwaasoo kale codingkaas ay u sameeyaan maxaan ku yidhahdaa ii sheega siyaabo badan ay u isticmaalaan laakiin inta ugu badan waxaa waaye inay stabilizer ahaan oga dhigto masalan kaniinkii haddii oo hadda maanta haddaa aan rabo kaniini inaan sameeyo let's say kaniini waxaan rabaa inaan ka sameeyo which is possible insha allah inaan maalin ka sameyno hadduu ilaah yidhaahdo malmal ya malmalka isaga already wuxuu yahay marka haddii la rabo kaniini hadda malmalkaan dhahay malmalka asagaa xabo kale ah si easy waa looga dhigi karaa laakiin wax oo budo ah oo isqabsanaynin oo kale haddaa arta inaa kaniini ka dhigtid iyadaa ku daraysaa simple iyada malmalkaba haddaa si kasta u shiidid saa markaa ka dhigtid beri markaa soo kacda soo isqabsaday oo soo kacaysaa oo waa naturally isagaa already wuxuu yahay gam marka taas oona cadaad leanno iyada saliid ma laha xabkahan oo dhan arkays kulli saliida leeyihin shantan kale maxaa saliidooda u sameynaa 6dan kale yani 5 waaye marka tan laga reebo cadaada marka laga shantan intaba saliidooda waa soo saarnay mid walbana waxbay u fiicantahay alxamdulilah okay laakiin iyada saliid ma laha waa biyo waaye beeskeeda waa biyo cam marka waxaan dhahnay pharmaceuticalkan way isticmaalaan farmashiyaha daawooyinka dadka soo saaro skin carekana way isticmaalaan oo siyaabo badan ay u isticmaalaan skin careka ay wishina ay u bedeli lahaayeen waxyaabo badan ee chemical ka dhigaan bahashan inay u bedelan lahaayeen laakiin weli hadda exactly ma hubo si ay u isticmaalaan laakiin waxaa la yidhi cosmetiga warshadaha soo saaro aaday u isticmaalaan waxyaabaha aan ka fikiri karo waxaa u malaynaa allahu aclam lipstick oo kale yani waxyaabaha oo galoosiga ka dhigi karo iyada way noqon kartaa hadda waxyaabaha oo ii sheeg liquid foundationka iyo waa lagu dari karaa annaga laftirkeena tijaabo waa gelin karnaa waxyaabaha liquid foundationka noqonayo masalan eyeliner haddii la sameynayo oo madow waa lagu dar waa sameeyay xoogaa laakiin wasaan successful ma ahayn maalin dhawitaan sameeyey xoogaa yani ma ii ha insha allah waxbaa ka dhidhiman haddii ilaahi calaykum salaam marka tijaabooyinkaas waxaan rabaa inaa ila gashaan insha allah maalin inaa oga maarano waxaas oo dhan haddii ilaahi shaqaalo weynaa taha ilaah ku fududay marka hadda insha allah wallahi
fiiri haddii gees u baahatid waa duub maayo casharka insha allah taala marka maxaan dhahnay hadda marka waxaan maraynaa cuntadii hadda waxaan maraynaa skin carekii cosmetic industrygan aad ay u isticmaalaan waxaa kaloo isticmaalo photographigan waa loo isticmaalaa yani waxaan dhahnay colorkeeda color stabilizer waay soo ma marka la print gareynayo printingka waxyaabaha lagu print gareynayo ku jirta khadda oo printingkay ku jirta because waxa waaye yani meeshii oo printingkay gasho stable ay ka dhigaysaa ma tirtirmayo insha allah marka printing companiesna way isticmaalaan photography printing companies overall marka lasoo qaado bahashan oo iyada generally haddii la rabo in la dhaho maxaa waay faa'iidadeeda waa ka hortaga xanuunada xanuun oo dhan qofka calooshiisa caafimaad ee qabto xanuun ma kusoo degdegayo marka waxa ugu weyn oo laga helo bahashan waa maxay in ay caloosha daawadeeda tahay haddii caloosha daawadeeda tahay micnaheeda waxa waaye cudur oo dhanna caloosha ka imaada waa inuu qofka yacni tan oo kale inuu daily dietkiisa ku darsado qasab meelo badan maxaan ka hadalna waxyaabo badan oo ay u fiican tahay marka hadda overall haddaa fiirisid marka laisku soo general lasoo duuduubo bahashan waxay u fiican tahay caafimaadka guud iyo ka hortagga xanuunada prevention of disease dabcan researchyo badanaa jiro hadda midaan soo diray kuwo kaloo badanaa jiro haddaa yani masalan gam arabic benefit keliya waa dhihi karta laakiin researchiga ugu fiican waxaa laga helaa study markaa ku dartid gam arabic study oo research haddaa ku daba dartid waxaa kusoo baxaya yani jaamacadaha waxay ka sameeyeen iyo kambaniyada waaweyn marka kuwaasayta b d f kooda iska soo download garayso mar walbo ha kugu jiraan adiga wuxuu kuu noqonayaa maalinta wax oo you never know internetkan isku haleyn male berita ina yani uu jiri doono lama oga marka waxaa fiican in inta lasoo download gareeyo hadhowna hard copy laga dhigo si waxaan fiiri annagaa waddankeeni waay soo maha waa inaan annaga preserve gareyno marka cilmiga noocaas haddaan laakiin isku haleyno dhahan onlineka ku jiraa mar walba waa helaya you never know tomorrow inuu jiraayo marka inaan lasoo print gareeyo laiska haayo yani next generation si uga faa'iidaan intaan qori karna waxna inaan qorno qoritaanka adduunka annaga waxay nagu soo gaareen dadkeeni waxay nagu soo gaarsiiyaan qorin laakiin hadda insha Allah waxaan ka hadlayna Soomaalidu wax ma qoraan ma maqasheen afka waxay isaga sheegaan wax ma aqriyaan ma maqash waa been dadkeena Soomaalida mar hore ee baabi'i lahayn hadda annaga cilmigan la soo gaarsiin ancestors-koona wax kasteena soo gaarsiiyeen laakiin last 200 years waxaa laga dhigay inaan waxba ahayn inaan nahay zero dad oo nomad ari la iska raacay iyo geel but that's not true waxaan way qornaan wax wal badan oo qoranaan la soo gaarsiiyay annaga marka waa inaan next generation ka shaqeyno inay waxaan aan gaarsiino haddii ilaahay yiraahdo special haddii ba lacag nooga bixin research-yada lagu sameeyay you know hal research oo la sameeyay meeqa lacag ku bixayso lacag yar ma aha hal research la sameeyay marka maadaama uu yani for free ay noogu imaadeen informationka alxamdulillah annagana waxa waa inaan sii qorno oo sii gudbino insha Allah taala marka taas intaas any wax hadda oo su'aal yani afka qabo iyada hadda maanta dhan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay faa'iidadeeda caafimaadka waxyaabaha ku jiro muxuu ahaa vitaminada iyo minerals ku jiro waxaan ka hadlaynay horta nooca ay tahay qurac waay geedka qurac waay laakiin quraciya badan magacyo badan ay leeyihiin marka tan aan ka hadlayno waxaa la dhahaa gam arabic ama achechi senegal ACACIA Senegal
يعني Senegalna way ka baxdaa Sudan way ka baxdaa Soomaaliya way ka baxdaa يعني all Africa dhan way ka baxdaa laakiin noocan oo gam carabiga la dhaho Soomaaliya Sudan ما قال إثيوبيا maybe لكن حتى هذا إثيوبيا كبح دين على الصومالي ذا وايه لأنه قرآن صومالي ميل بمري وكو أركايا I think مجلس أو قرآن تجار إلا به تجار مجلس وحلاي هاي فلاور ير أو عجاء أو يلو ولاي مركا مركو حدا هنا يعني وحلاي مقاعدة كردون جم عربي تشجع السنغال سومالي كانوا حلقوا ده حبق عداد أم حبق معان تاسوات لهني كلها إنا عفمات وتاي أو كادد أي بديسو هذانا نظيف يسو لفها إنا دستو أو محو هاي تيشك فروت كأما دعان لفها إنا overall لفتي بديسة اسمها دام كالسيوم waxaan dhahnay waxaa ku badan calciumka magnesiumka iyo potassiumka saddexdaas ku badan marka lafiya u roon tahay maskaxda u roon tahay caloosha u roon fiiri maskaxda caloosha laga xukumaa qofka calooshiisa haddii xanuunsantaa maskaxdiisa ma caafimaad qabto marka gadka iyo waxaa isku xiran iyo maskaxda qofka haddii uu xataa stress haysto ya caloosha maxay u xanuuntaa maskaxda stress waxa ka mid ah way isku xiran yihiin marka laba wax oo kala maarma ah hadduu qofka calooshiisa iyo gadkiisa nadiif tahay maskaxdiisa nadiif ay noqonaysaa insha Allah marka maxaa kaloo dhahnay kiliyaha lafaha waa nafaqo oo dabiici ah yani probioticna way tahay oo ii sheeg bacteria jirka u fiican oo jirka korisa ayaa ku badan marka waxayna ka shaqeysaa large intestine-ka qaybta muxuu ahaayeeto mandhicirka oo ugu dambeyso oo digestive system wuxuu ka bilowdaa afku ka bilowdaa Soomaa meesha ugu dambeysana waa meesha saxarada ka baxda waxaas tubadaas oo dhan isku xiran tahay marka qaybta ugu dambeysa daawadeedii waa tana waana qaybaha ugu badan oo xanuunada laga qaado marka haddii uu qofka uu badsado ama maalinkii uu yeesho dose uu qaato maalintii insha Allah yani caafimaadkiisa uu fiicnaanaya hadii la yiraahdo marka waxaan kaloo ka hadalnay dose waxaan dhahnay laba qaado oo tablespoon qaadada wax lagu cuno ama 15 gram dada dhahay aniga waxaan jeclahay 3 qaado 3 Soomaa 3 taas aan jeclahay tablespoon kaasita marka la qaato taasa u badan waxa arkay marka 15 gram kaas ama 3daas qaado laana mar walba qofka gram ma helay 3 qaado waxa uu iraahdaa laana waxa ugu fudud qofka ku qiyaasan karo so markii a spoon could be considered 5 milliliters or 5 grams yeah or tablespoon could kanyadna waxa waaye you know kawinka actually was 15 kanyada are 5 okay teaspoon hadda ya way jiraan hadda 3daas qaado waxa uu iraahdaa inta badan research ugu fiicna helay wuxuu ahaa dad oo Suudaan iyo Masaari iyo cadaan isku jiro mid ay sameeyeen waa u maleynaa inuu computerka ku jiro researchgaas mid ka weyn ma akhrinin oo baashan xoog la saaray oo dhinac walba laga hadlay maalinka ka helay recommendationkaas ay tahay 3 tablespoon ayaa recommendation ugu fiican ah kaas waa kan dadka aan siiyo ilaa haddana qof dhib ka soo sheeg marka haddana waxaan dhahnay overdose ma noqon karto baashan as long oo qofka biyo la qaadanayo biyo adigoo iska qaadanaya iyo hadaa biyaha kugu yar yahay dabcan waxaanita waa glue camal oo the other thing aan ka hilmaamay waa natural glue gluegi warqadaha koow iyo gluega alwaaxyadana waa lagu sameeyaa yani waa natural glue oo hadda glueyada kale chemical laga sameeyaa hadda rabtid safety-ga gluega this is it water glue thick ayaa ka dhigaysaa waa shiidaysaa waa miiraysaa iyadoo culus meel dhigaysaa dabcan markaas oo kale waxay u baahnaanaysaa antibacteria waxa
malmalka biyihiisa in biyo looga dhigo ama lubaanta biyaheeda in biyo looga dhigo laana fermentation badan ay sameynaysaa maxaan dhahnay waa probiotic soo maa bacteriyadeeday wadataa marka laakiin bacteriyada fiican waaye laakiin hadday meel sii taalo way isbedelaysaa ha marka waxaa loo baahan yahay biyaha oo kuwaan oo kale in loo isticmaalo haddii glue la rabo in laga dhigo ama anything yani haddii la rabo inay maalmo banaan ooleyso oo kale hadda saddexdaas qaado haddaa u kala qaybsatay oo maalinkii lagaaga baahan yahay inaad qaado hal qaado mushaarada waa ku darsan kartaa hal qaado waa ku dari kartaa mushaaradaad shiidaysa laakiin markii biyihii mushaarada ay ku saaran yihiin hal qaado haddaa ku darto intaasaa kaaga filan hadday aday heshiineen oo kale waa ku dhex ridaysaa biyaha intaada mushaarada biyaha dabka saaran ama hal xabo oo kan haddaa ku ridid ya hal xabo oo kan ama laba xabo maaragti ayaa ku ridda soo maa biyaha markay karaan way ku dhamaanaysaa biyihii mushaarada markay ku karayaan intay ku karayaan waa kusii ridatay marka ama iyada oo shiidan laakiin ani markaan kale qiyaas ma ka qaadi karo powderka markay noqoto marka maxaan dhahnay cuntadii noocyo badan aan ka hadalnay sida cuntadeena loogu dhex dari karo taasna waxaan sameynaynaa maalinta practicalka aan gaarno ayaa aan maaragtay insha allahu tacaala marka mainly waxaa kaloo dhahnay food industryga way isticmaalaan waxayna u isticmaalaan food thickening ahaan ayay u isticmaalaan inay cuntada u adkayso stable oga dhigto sidoo kale pharmaceuticalka way isticmaalaan sidaas oo kale printing companies coloring waxaas oo dhan insha allah farxii anaa gadaal kaa siinaya wixii oo ziyaado ah cashirka marka hadda yaa su-aal ka qabo keliya waxaa dhiman marka kaas laga baxo waxaa soo diyaariyey burka ku darsanayna mise beryaan ka dhigana burka yani waxaan dhahnay hal maado markaan qaadano oo daawo ah cuntada waxaan qaadanaynaa hal nooc oo aan ognahay inay dhib leedahay ama faa'iido leedahay soo hadda maanta burkaan soo diyaariyey haddaarna beri waa ka dhigan karnaa beri horta ma imaan karnaa beri oo kale cashar ma dhici kar ma jirinin laakiin idinka idin jirtaan ya ina maalin ha okay bes marka hadda waa ku darsanaynaa burka cad soo maha okay insha allah